السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaa soo aragnay account typeska iyo noocyada kala duwan ee account-yada. Waxaa fiirinayna marka simple way oo si fudud aad ugu abuuri kartid Facebook page. Waxaa u malaynaa inaa soo dooratay yani businesska ama ganacsiga aad rabtid inaa online ku sameysid. Then sidee page ku sameyn kartaa? Ani page-kayga hore u sameeyay marka waxaa rabaa si simple kan waxaa rabaa inaa sameeyo page oo adinka practice-ki iyo habkii aad martid. Yani mobile waa isticmaali kartaa, computer waa isticmaali kartaa. Marka mar walba waxaa ku recommend gareynaa inaa isticmaashid mobileka. Mobileka markaad joogtid inta waa tegi kartaa meeshaan ay ku qoran tahay pages ama waxaa dhihi kartaa halkaan inaad tagtid. Waxaa dhihi kartaa meeshaan ay ku qoran tahay meeshaan dhibcooyinka inaad tagtid create aad ahdid kadib aad ahdid page number 1 halkaas aad tagi kartaa ama halkaan aad tagi kartaa. Marka waxaa dhahdaa page dheh. Okay, page-ka aad rabtid magaciisa halkaan aad gelinaysaa. Tusaale company aad soo qoratay alaab aad rabtaa inaad online ku iibsid. Tusaale waxaa dhehaysaa kasoo qaad maxaa la dhahaa simple maxaa la dhahaa tusaale le ka rabaa test 01 inaad adiga samaysid. Ani hadda page-kayga wuu diyaarsan yahay. Yani category meeshaan aad ka dooranaysa. Category-gaaga maxaa waaye inaad fahmi kartaa lagaa rabaa. Yani what kind of category oo business-kaaga uu yahay. Yani haddii يعني e-commerce uu yahay halkaas aad gelinaysaa. Education hadduu yahay halkaas aad gelinaysaa. Marka maadaama aad e-commerce ama service wax walba uu yahay businesskaaga typekiisa halkaas aad gashanaysaa. Then description. Description-kan waxaa waaye faahfaahin yar oo ku saabsan businesskaaga. Tusaale yani businesskan ama yani inaad ku qortid xogta businesskaaga. Tusaale company-gan wuxuu iibin doonaa alaabaha kala duwan ragga. Yani qaabkan camal inaad u diyaarsid then aad dhahdo yani create page. Create page markaad dhahdid simple waa hab ugu fudud automatic waxaa noo abuurmay page-keennii. Page-ka markuu abuurmo waxaa muhiim ah marka inaad design-kii loogadii iyo waxyaabahaas aad usoo samaysid. Marka qaabkee u diyaarin kartaa waxyaabahaas saa ujeedid wuxuu leeyahay hadda account-kaaga waa la abuuray. Yani wuxuu ku weydiinaa inaad kusoo dartid maxaa la dhahaa image-kii loogadii cover-kii iyo waxyaabahaas. aniga maadaama cover iyo logo iyo waxyaabahaas hadda aanan u baahnayn aan dib ka samaynayno waxaa geli doonaa cashirka xigo saa ujeedid page-kii wuu noo diyaarsan yahay. Marka number 2 waxaa waaye inaad diyaarsatid loogadii iyo cover-kii. halkaan kusoo kooba loogadii iyo cover-ka sida loo diyaariyo cashir gooni ku arki doonaa.